Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacayga Yasmiin waaye. Kusoo dhawow caafimaad fiican. See la yahay malafayaa mala fiican yahay. Faamiliga dariska cidda dhaan see dareemosiin. Markasta waa idin weydiiyaa jawigiina ka warama. Meeshaana howl ku haystaa. Waxaan rabaa inaan idin sheekeeyo intaan howsha qabsanayo ee iga raali noqdo. Ina idinku kor shaqaysanayo camal Soomaali waxaa la dhihi jiray qofka u fariiso ee indhaha u saar. Maasha Allah tabaarakallah. Meel alle meeshaa joogtiin adduunka waxaan idin leeyahay soo dhawaada. Alxamdulillaah wa shukr lillah. Anaka waqtiga waxaan ku jirnaa qabowga baraf dharka koor dhar badan aan la gashanayaa meeshaan. Reer Soomaali waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum. Waqtigiina waxaa waa qurux iyo qoraxaa joogteen qorax milic baa jidho maasha Allah tabaarakallah. Ilaahay idin saa'idiyo qof walba meel alle meeshay joogta niyadeyda Ilaahay u dejiyo qof walbana waxay jeceshaa Ilaahay u sahlo. Walaalahay gabdhaha Soomaaliyeed waa idin salaame. Maalin horaan galaas qaadanayay markaas waa la sheekeynayaa dad meesha isku imaadaanba waa la sheekeynayaa. Gabar kasto marka waxay ka sheeganaysaa xaas kasto waxay ka dacwootamaysaa ninkeyga saan ninkeyga ay dhibay cidiisa ay dhibay saana jirto. Ilaahay waxaan ka toogayaa inuu dhibkaas naga wada qaado. Aamiin yaa rabbi. Aamiin. Gabdhaha gabar ka mid ah sheekeynaysa waxaa la weydiiyey su'aal. Waxaa la yiri intaasoo sanaa lagu qabaa soo maaha maxaa kugu dhib badanaa la yiri ninkaaga. Waxay tiri waagaan isku cusbaneen waxay tiri dhib aan ku qabi jiray tiri hadduu halkaas macaawiistiisa ku tuuro shaatigiisa tuuro ama iskaalsha tuuro waxay tiri dhib waa dhibsan jiray. Sanadii badan markaan la koray oo waxay tiri waa isla weynaani isla koraysiin mogtahay adi iyo xaaskaaga. Waxay tiri sanadaana dhaaf caruuraan dhalna waxay tiri habeenkii hadduu shaqada ka imaado daanga dadka jecel waa tiri daangoo samaysanaa digsiga daangada waxay tiri meeshuu iiga tegay subaxii saliidii iyo wixii aan dhaqaa waaba dhibsadayba. yaa Allah qof walba soo gooni manihiino wax ma dhibsano. Waxay tiri digsiga waxaan dhibsaday saliidda uu ku shubay oo habuuqi ku dubtay. habuuq daango sida u ka siisid popcorn saa u ka siisidba. Marka waxay tiri saan u dhibsan jiray aan wacayay tireen shaqada subaxii ilaa intaan jiifaani caruurtu naga tagayay. Markaasaan waxaan tiri walaalo dhib badanida habeen kasta waxaa imaada jikadoo nal cuntada intan ku kululeeyo saxankaaga qaado dhaqo meesheeda tirtirto. Subaxii waxay tiri jikadii waxaan rabaa inaan soo kaco digsiga uga tagtay tiri habeen barkii maxaa daango cuntaa. qof walba ilaan waa wuxuu jecel yahay mogtahay haddana nin maanta dhan shaqeynaa wuxuu rabaa galabtii xoogaa inuu nasto maskaxda bal dejiyo intuusan sariirta fuulin. Marka waxaan dhahnay see isu bedeshay ilaa hadda intaasoo sanaa lagu qabaayay sidii maa u dacwootamay. Maxay tiri digsigii wuu isbedelay. Muxuu isu bedelay? Waxay tiri annaga markaan jiifnay tiri aniga ilmaha subaxii shaqada aadayay tiri hadduu aado waxay tiri subaxiina qaxbuu rabaa tiri inuu karsaday tiri coffee. Marka waxay tiri coffeegii mashiinkii u gatay tiri qurux badan oo kafeeyu samaystay waxay tiri intaan jiifno ismaamulay tiri waxa ninku waaba nin bashaash haduuba habuuqa karsanaya popcornka subaxiina qaxbadiisa karsanaya waxa ninkaas dambi lama saari karo. Waxay tiri markuu isbedelo waxa isu bedelay tiri koobka qaxwada markuu cabay tiri mashiinka uu samaystay uu koobki saarayay tiri asagoo koobkii ama biyo ka da'ayo intuu biyo raacsho meesha tagayay tiri u dhigayaa ama qaxwadii ka daadanaysay tiri ama meeshii qaxwada ku wada daadataba kafeegii ina kafeegu waa sida bur oo kale mogta meeshuu kaaga wada daadanaa. Marka waxay tiri aan subaxii haddana u imaadayay tiri hayse ka dareemaysaa. Waxay tiri waa isbedelayo waan soo weynaaday marka waxaan isu bedelay tiri intaan nacayay tiri howlahaas oo kale wasaqdiisa aan ka dabanadifin. Hadda waxay tiri waa koob yar oo qaxwada iyo digsigii waxay tiri saliidda uu daangada ku dubanayay tiri aan dhibsadayba
marka waxay tiri hadda waa soo weynaaday waa isbedelay waxay tiri markasta saan u dhibsan jiray ninkii salaadan waxay tiri dukanayaa waa fariisanaya tiri salaada markaan dukado salaada duxadoo kale siiba waxay tiri quraacna waa dhameeyey tiri qaadana la igama rabo moogta waqti yaraan haysta waxaan leeyahay tiri ilaahayow waa waxaan dhibsaday oo yaree icafi ilaahow icafi wax yar waaye aan dhibsaday tiri oo ninkayga icafi ilaahay waa isbedelayaaye adaana waaxidkii oo weynahe waa ku toogayaa yaa rabbi icafi midda kaleetan ilaahay waa markasta aan soo kaco digsigana waa dhaqaaya hadduu daangi cunaye laakiin ta subaxii hadda isu bedelayoo koofiga meesha dhan ku daadsho ka tagaaye waana nadiifinayaaye ilaah caafimaadaan ku nadiifiyey sii ilaahayow adaa weynoo waaxidahe ilaahow jannada igu gelitan ilaahayow saan u dhibsanaye waxay tiradaa og xaalkaygii dhexdeydii qalbigaygii ilaahow jannada igu geey subaxii marka waxaan hadda markaa soo kacday maxaa suubisaa waa soo kacaye tiri markaan jikada hoosheeda bilaabaye waxay tiri sidii waaye tiri qaxwadii meesha ku daadsan iyo waxay tiri koobkii u malaysay tiri intuu ka cabay oo haaf ama wax ku reebaye tiri meeshii uga tagaa ama mashiinkii waxay tiri qaxwadii ka daadanayso asaga dhanba wax ka dareerayo waxay tiri dhib ma jiro intaan ilka cadeeyo on qoslo waxaan dhahay tiri ilaahayow waa tatirayaaye jannada igu geey yaa rabbi jannada igu geey marka waxaan rajaynaya tiri waxyaalaha uu sameeyo oo aan markasta weydiistoon dhahay tiri walaal saan u nadiifi uusan iga maqlayninay tiri ma degdegay ka taha ma shaqadii u ordaa mise waxay tiri maba ka fakariyaba marka waxay tiri hadda qalbiga intuu ii degay aan waxaan dareemayay tiri raxmo waxaan dareemayay tiri inaan iska qoslo waa ilka cadeeyay tiri markaan wasaqdiisa nadiifinayo awal dhaxda inta ka dhibsado aan nici jiray tiri wax aan nicaysid ma aragtay tiri qalbiga dhanba aa ka nicaysid si kastana aa yeeshay oo aadan bedeli karin hadda waxay tiri sidaan ilaahay ugu jeestay dhinaciisa aan u toogay waxay tiri nimcaan dareema leer markaan nadiifinay waxaan leeyahay tiri inta iska ilka cadeey ilaahow jannada tan igu geey ilaahayow jannada tan igu geey marka maanta waxaan rabaa inaan idinla qaybsado waxyaalaha qaarkood oo aan dhibsanayno bani aadana tahay waa dhibsanaysaa waadna nacaysaa waxyaalaha qaarkood marka ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka toogaynaa annaga wada dhanba haddaan wax dhibsanno ama haddii dhibnahayo inuu ilaahay subxaanahu watacaala aan u jeesana aan dhahno ilaah noo fududee qalbigana noo deji aamiin yaa rabbi aamiin insha allah intaasaan raba maanta inaan idinla qaybsado waa mahadsantihiin walaalaha malabkeena raadinaya waa kanaa Carmel Mall 221 Abay Fatima dukaankeeda aa ka helaysaa Minnesota maasha allah waa 221 second floor Carmel Mall